cuqaasha aqoon-yahanka siyaasiyiinta dhalinyarada iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley ayaa maanta shir jiraayad oo ay ku qabteen hotel maamuus ku taageeray go'aankii ka soo baxay xukuumadda iyo labada gole qarankaasi oo ahaa in dib loo dhigo diiwaangelinta kaarka codbixiyayaasha si looga qayb qaato gurmadka abaaraha ba'an ee ka jira guud ahaanba Soomaaliland sidoo kale iyaga oo dhaliilo u soo jeediyay xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan ku taageerinaa go'aankii madaxweynaha iyo golayaasha deegaanka golayaasha baarlamaanka iyo guurtiga go'aankaas wuxuu ahaa go'aan dhaxalka waxaan xaq u leeyahay madaxweynaha iyo golayaashu oo u dooranay inay eegaan dibta iyo hawsha taala dalka marka ay wax soo kala dhacaan taasi waa xeer dadkuna xeer buu kala socdaa nimada kursiga doonay waxaan leeyahay gabar baa u baahatay inay wiil dhasho dabadeedna doorkii dhow beel maxaad dhalaysaa inan baan dhalayaa bay tiri inan bay dhashay haddana doorkii labaad beel maxaad dhalaysaa inan bay haddana dhashay waxa la yidhi kalgacaylo wiil laguma dhalo kulanti mooyaane kursiga laguma fuulo magaranaysaa orod iyo xiiq iyo orod laguma fuulo kulantibaase lagu fuulo waad ogtihiin siiraaya inta jeer ee uu soo laba jeer noqday kursigaasi arrinta xisbiga wadani oo kale wallahi qof ummadda u naxaya amba naxdin ummadani ay ka haysaa inuu diiwaangelin ku si qasbo ama ku tiigaan maaha xisbiga wadani waxba ummadda kuma taraan kamana caawiyaan laakiin xukuumaddu way ka warhaysaa inkastay waajibkeedii tahay haddana waxaan odhan lahaa kuwaasna naxdin darrada meesha taalla iyo arxan xumada may ahayn maanta in laga qayliyo go'aangelintuna waa waxay asxaabta qaranku wada leedahay oo aad idinku dantiina laakiin halkaa waxaa ka muuqata nin kursi ku cararaya dad danka ma laha iyo cid dhimanaysa iyo cid abaari haysatun duunyadii way socota dadkii baa iminka madaxiisa bilaabmay maadaama caynkaa tahay dee doorasho iyo commissioner qabtaan ma jiraayo markaa waanu taageersannahay barnaamijkaa la soo jeediyey waroodseexa dib loogu dhigay waxaanu komishanka iyo xukuumadda iyo cid kasta oo danaynaysaaba aan horta ka codsanaynaa maadaama ay abaaro adag oo qaylo dheer laydhaa ay nagu dhaceen in annagana hoos naloo eego oo goobaha marka la bixinayo muxuu ahaa hargeysa la bilaabayo kale in annagana goobadna loogu soo kordhiyo maadaama dadkayga ay abaaro aad iyo aad u riiqeen saddex qaybood marka laga dhigo laba qaybood ma isdiiwaangelinba waa arkaysan abaarihii guddidu ay qaybinaysa hoos ugu qaybinayeen waqooyi ilaa waxay istaba jiifaan weli qabri baxar bay istaba jiifaan ilaa halkaa foodii tukan bay istaba jiifaan gumaalkii u horreeyey ee guddida abaaruhu maalin dhaweyd bay gaadheen waxaan leenahay dadkii warduunyadii dhammaanteed dadka ha la badbaadiyo dadka kursiga doonayaan dadkay codka ka doonayaan ha badbaadiyaan taageersannahay go'aanka odayaasha iyo guurtida iyo maxaanku idhahdaa komishankuba ay gaadheen dadka waxa dadkii isdiiwaangelin lahaa waxay eryayaan iyo waxay dhadhamiyaan cabdilaahi daari telefishinka caalamiga ee Somali Channel Gabiley